Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan waxbarashada iyo dhaqanka ee UNESCO ayaa 21-kii Febraayo 1999 u aastaysay Maalinta Caalamiga ah ee Afka Hooyo. Caalamka waxaa looga hadlaa in ka badan 6,000 oo luqadood. 60% mujtamaca adduunka waxa uu ku hadlaa 30 luqadood oo ah luqadahooda hooyo. Afrika waxaa looga hadlaa 2,000 oo luqadood. 80% luqadaha Afrika lama qorin weligood, waana sababta keentay inay meesha ka baxaan afaf badan oo muhiim ahaa. Sidoo kale, bil kasta waxaa caalamka ka dabar go'a 2 luqadood. Luqadahani waa 10 luqad ee loogu hadalka badan yahay adduunka. Af-Soomaaliga waxa uu ka mid yahay 12 luqadood ee loogu hadalka badan yahay Afrika, waxaana Far-Soomaaliga la qoray sanadii 1972. Xilligaas ka horna waxay Soomaalidu wax ku qori jireen faro kale. Dad badan ayaa ku dooda in Far-Soomaaligu markii la qoray kadib aysan helin dhamaystir wanaagsan iyo horumarin toona. Muddooyinkii ugu dambeeyayna waxaa aad u yaraaday dadka inta ku wanaagsan qorista Far-Soomaaliga oo qalqalbaxsan. Afku waa qaybta ugu muhiimsan ay leeyihiin bulshooyinku, waana ilaaliyaha dhaqanka iyo taariikhda dal kasta.